saddexdan arrimood maalintaada ku qurxi. saddexdan arrimood maalintaada waxaad kaga dhigtaa maalin qurux badan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal mawduuceenu maanta wuxuu ku saabsan yahay oo aynu ka hadlaynaa saddex arrimood oo sababi kara maalinteenu inay noqoto maalin qurux badan, maalin cibaado, maalin aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala raali gelino. saddexda arrimood waxaa ugu horeeya kow in ay maalinteenu noqoto ama maalintaadu ay noqoto maalin dikri, maalin aad ilaahay subxaanahu wa tacaala aad xustay. dikrigana waxaa ugu horeeya maalintu markay kuu bilaabanto oo hurdada aad ka soo kacdo, carabkaaga waa inaad ku bilowdaa xuskii ilaahay subxaanahu wa tacaala. macnaheedu waa maxay? macnaheedu waxa weeye markaad soo kacdo adkaartii bacda annawm la aqrinayay, adkaarta marka hurdada laga soo kaco la akhristo, adkaartaas ha ilaawin oo maalintaada ku furfur adkaarta hurdada marka laga soo kaco. maalintaada yacni akhriso adkaarta subxii la akhristo. maalintaada badi istikfaarta aad rabbiga u istikfaaranayso. maalintaada badi tasbiixda iyo xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala. kow arrinka koowaad ee maalinteena qurxinayaa waa inay noqoto maalinteenu maalin xus ilaahay subxaanahu wa tacaala aan la nimaadno, adkaar aynu la nimaadno. lambarka labaad ee maalinteena qurxinayaa waa waajibka ilaaha inaynu ka soo baxno. qof kasta oo inaga inaga mida wuxuu ogyahay oo muslina in ilaahay subxaanahu wa tacaala waajib saaray yowmiyan 5 salaadood in aad maalinkaaga tukato. lambarka labaad ee maalinkeena qurxinayaa waa inaynu 5 salaadood oo waajib ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga dhigay waqtigeeda ku tukano. haddii aynu karaynana aynu ku darno sunnayaashii, aynu ku darno oo sunnayaashii salaada subax ka horeeyay, duhurka, casarka, maqribka aynu ku darno. muhiimaddu waxa weeye arrinka labaad ee maalinteena qurxinayaa waa inaynu 5 salaadood aynu la nimaadno ee waajibka ahaa. haddaynu ka siyaadin karnana aynu ka siyaadino. arrinka saddexaad ee maalinteena qurxinaya waa arrinka ah kalaamullahi subxaanahu wa tacaala. in aadan yacni in aysan ku soo marin maalin ilaa inaad aqriso qur'aanka. qur'aanka waa inaynu maalinteena aqrinaa, walow haba yaraade, walow in yar bog xisbi yacni rawaatib aad qur'aan aqrisaa waa inaad yeelataa. maalintaada ha noqoto maalin aad aqriso ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa iyo qur'aankiisa. saddexda arrimood walaalayaal waxay inoo sababayaan maalinteenu inay noqoto maalin qurux badan, ilaahayna subxaanahu wa tacaala aynu ku raali gelino, maalin aynu xus ilaahay subxaanahu wa tacaala la nimaadno. si guud haddaan ugu soo celiyo, kow maalinteenu ha noqoto maalin adkaareed. 2 maalinteenu ha noqoto maalin aynu ka soo baxno waajibaadkii ilaahayna saareeya 5 salaadood iyo yacni sunnayaashii haddaynu ka siyaadin karno. 3 maalinteenu ha noqoto maalin aynu qur'aan akhrino oo yaynayna soo marin maalin ilaa aynu qur'aanka waxun aynu ka akhrino. kalaamu rabbi alcaalamiin. walaalkii maxamed. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.